حسن الشيخ on salaamay oo nin tala naga dhaxaysatay qofka markay wax ka dhaxayaan saaxiibnimo laga sameeyay cadownimo laga sameeyay qof salaamay ma mabda'u bedelka qadiyada haday saa uga jilcisan tahay oo ay haday qof salaamay qadiyada burburiso qadiyadu ma mudane gudoomiye waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo la kulankaaga madaxweynaha dawladda federaalka iyo wasiirka arrimaha dibadda Fuusiyo Yuusuf Xaaji Aadan muxuu ku saabsanaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeye arintu waxa weeye annaga ciidahan xaflad baan ku lahayn ilmahan madaxweynuhuna xaflad ku lahaa oo jaaliyada Soomaaliya ayaa casuntay marka maadaama dad magaalada jooga ay yihiin dad reer Soomaaliya iyo jaaliyada Soomaaliya saaxiibna ka dhaxaysa marka niman cid ka tirsan iyo kulmiye ka tirsan oo Muuse kamid ah gudoomiyaha Benmaham ee kulmiye ayaa marka yiri waxa madaxweynuhu codsaday inaan salaano marka inuu yimaadeen waxay lahayn madaxweynaha halkan Soomaaliya joogay waxay doonayaan inay salaantaan waxaan nidhi wax noo socda xafladiyadii ana baa la yiri u tago soo salaan inaga soo salaan marka way qaadeen waxay keenay xafladii waa joogtay adna waxaan filayaa dadkii aflaam filimada qaaday baafo kamid ahayd oo meesha isku salaanay dawaan salaamuun madaxweynaha iyo wasiirka difaaca iyo xaaskii madaxweynaha iyo miiskii fadhiyeen ayaa yara fariistay watan fadhiyo su'aal bay weydiiyeen waxay yiraahdeen su'aal bay waxay ka waran doorashadii shirkii London waxayna shirku noo fiicnaa laakiin intii baa naga maqneed ana waxay malaha baadin nimaada waa duul lahaydeen marka gaadnaydeen kalmaasi ku qosqosliyeen madaxweynaha iyo aad u timid Somaliland aad bay ugu carootay dabcan wasiirka warfaafinta Somaliland waa uu ka hadlay maanta marka maxaad isleedahay marka hore waa ka careysiyay oo yahay aniga Xasan Sheekh on salaamay oo nin tala naga dhaxaysatay qofka markay wax ka dhaxayaan saaxiibnimo laga sameeyay cadownimo laga sameeyay shacbiga halka joogay xaaladaha bay ku joogay ugu farxeen marka ku laas deetan kuma ka soo qayb galan shacbi public ala kale qarqaasanaya marka naiifnimada iyo jahliga ka muuqda reer Somaliland madaxdiisa ay horta oo ka muuqata ay horta nimanka ka shaqeen waana ceeb min baan salaamay madaxweynaha salaamay oo talaaba laga qaadaya waxa tusaysaa inay juhalayeen oo karno ayaanu gana jahliga ay horta wasiirka warfaafinta wax kale uu sheegay in dawladda Somaliland iyo shacabkaba ay go'aan cad ka qaadan doonaan la kulankaaga dawladda federaalka marka maxaad isleedahay waa lagu qaadi doonaa waxa mucaarad mucaaradka xisbiga u cid Somaliland dabcan waa tagaysaa marka tagto marka Hargeysa maxaad isleedahay la kulmi doonaa abibtina cadaw oo diidi kala Soomaaliya xukun ku qaadi karo waa ka cuslahay ma ogtahay